السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعبد الناصر أو مانتنا هالكن إذا كسب باهين دونا سيدي عدد إنه هيد برنامج يديني تحنها أها كصاب سنة برنامج يدا عين بعينك مرة وحي نكهذا الله الرمها برشدا مرر كقار كودنا وحي نكهذا الله سوغان تأيي أفك الصومالية مربى وحي نكهذا الله نوع مركب برنامج يدي إنه عين بعين بيعاي maanta insha Allah tacaala waxaan idin hayaa sheeko yar oo kooban oo runtii aad iyo aad u qurux badan oo aniga ay soo jiidatay aan filayo waliba aan jecelahay idinkuna insha Allah tacaala in ay soo jiidan doonto sida ay anigaba ii soo jiidatay sheekadan idinka oo magac bixin doona gabadh Soomaaliyeed ayaa waxa uu soo haasawo tagi jiray saddex nin oo kala jaada gabadhaasi waxay ahayd gabadh ilaahay quruxiyo qiimaha weyn basiyay inan gashaantii oo timatilcan bay ahayd saddex nin oo kala duwan ayay la haasawdaa saddex nin oo kala duwan ayay gabadhaasi ama inantaasi ay la haasawdaa nin ma oga nin walba xilli gaara ayay kulmaan ama haasawahoodu uu socdaa dabeeta inantii waxay ahayd inan aad iyo aad u maskax badan inan fariida inan furfuran waxay ahayd inan haweenka wax badan dheer baynu oran karnaa runtii oo ah haweenka kuwa ugu fiican inantii gashaantida ahayd maalintii dambe sidii waqtigii uu u soconayay maalinba maalin ay u dhiibaysay waxay go'aansatay maadaama imika sheekadoodu ay muddo socotay in ay sheekada soo gabagabayso oo saddexda nin ee u boqran guurkeeda ay xujayso oo ay saddexdooda ay kala saarto iyada oo adeegsanaysa aftahamadeeda haweenka Soomaalida sida lagu yaqaano ama sida ay ahaan jireen ba aynu nidaahnee iyo qaar badan oo hadda ka mid yihiin sida yihiin haweenku gabadhu waa in ay ninka iska tijaabisaa ay iska eegtaa ninkuna sidoo kale waa inuu gabadha iska eega oo iska tijaabiyaa oo uu dhinacyo fara badan ka eega gabadhuna sidoo kale waa inay iyaduna ninka dhinacyo fara badan ka eegtaa ma aha inuu ninku iska eego gabadha lafteedu waa inay ninka sahansataa oo iska eegtaa oo ay ogaataan ninkani ma yahay kii ku haboonaa mise ma aha kii ku haboonaa gabadhii waxba yaan hadal idinku daalan aan ku soo dhawaada sheekade inantii gashaantida ahayd saddexdii nin ee u boqranaa guurkeeda ayaa saddexdiiba way ballamisay Soomaaliduna waxay ku maahmaahdaa gabadhi baa la yiri hala yaabin markaan ku dhaahdo gabadh baa saddex nin la haasaawisi waa tii hore loo yiri gabadhi saddex boqollo way la haasawdaa baa la yiri inani boqollo way la haasaw kunna way la haasawdaa kowna way ka raacdaa kunna way la haasawdaa inantu kowna way ka raacdaa waxa laga yaabaa rag tiro badan inay la haasawdo laakiin mid buu calafkeedu noqdaa midkii alla u qadaro inantii saddexdii ninba waa ay ballamisay goob cayiman oo isla garanayaan bay saddexdoodiiba ku ballamisay isku xilli iyo isku waqti bay ballamisay saddexdoodiiba saddexdii nin waliba isaga oo shaaximan oo isla maanta uun baad guushii gaadho yoolkaadu socotay aad gaaraysa ayaa nin waliba halkii iska soo xaadiriyay inantiina iyada oo sida nuurkeeda iyo shacnigeeda iyo wanaageeda aad yaabayso ayay iyaduna halkii timid afartii qofba halkii bay ku kulmeen gabadhii iyo saddexdii nin ee inantan guurkeeda u boqranaa inantii isnabdaadin kadib kolkii la isnabdaadiyay ama la isbariidiyay af Soomaaliga barida la yiraahdo ama nabdaadis baa la yiraahdo waa marka la isa salaamo kolkii la isnabdaadiyay ama la isbariidiyay dabadeed bariido iyo salaan iyo isnabdaadin dabadeed inantii waxay u sheegtay saddexdii nin kasta oo kamida waxa ay u sheegtay oo ay ku tiri waar niman yahow aniga de horta saddexdii nabaydi ballamiyay saddexdiinaba aniga idi ballamiyay iyada hadalkii furtay waxay tiri saddexdiinaba aniga idi ballamiyay oo goobta tan aynu joogno iyo goortan idi ballamiyay hase ahaatee waxaan doonayaa bay tiri caawa niman yahow saddexdiina nin walowba ujeedada iyo waxaad aniga iga doonayso ama ujeedada aad iga leedahay hal weer ku soo koob nin walowba ujeedadaada hal weer ku soo koob weed labaad iyo tu saddexaad iyo tu afraad midna laba rabo sidaasay ku tiri inamadii
nin waliba madaxuu kor u taagayo madaxa la wada xoqdayo markaasuu nin waliba ka fikiray sidii uu hadalkiisa u soo koobi lahaa ama uu ugu soo koobi lahaa hal weedh sida ay qalanjadan ama geenyadani sheegtay waxbaa ka dhacay goobta saddexdii ninkii u horreeyey ayaa waxa uu yidhi inta aynaan sheegin saddexda ninkii u horreeyey waxa uu yidhi had iyo jeer hablaha Soomaalida ama gabdhaha Soomaaliyeed ragga way iska tijaabin jireen ragga way iska eegi jireen haddadanna way iska eegaan oo qaar fara badan oo ka midii ninkani inuu yahay nin u qalma guurkeeda iyo inuu yahay nin aan u qalmin gabadhu way iska hubisaa waana waajib saaran oo inay iska hubisaa waa waajib isaguna inuu gabadha iska hubiyaa sidoo kale waa waajib marka waxa dhacay had iyo jeer gabdhaha Soomaalidu marka ay ragga iska tijaabinayaan waxyaabo fara badan bay ku xujayn jireen su'aalo fara badan bay weydiin jireen dhinacyo fara badan bay ka eegi jireen waxay eegi jireen ninka aftahamadiisa waxay eegi jireen ninka fariidnimadiisa waxay eegi jireen ninka geesinimadiisa waxay eegi jireen ninka deeqsinimadiisa waxay ka eegi jireen dhinacyada nolosha meelo fara badan bay ninka ka eegi jireen dhinacyo fara badan ayay ninka ka eegi jireen dhinacyo fara badan ayay ninka ka eegi jireen sidii bay ku tiri gabadhii waxay ku tiri markaa waxay ku tiri saddexdii ninkii u horreeyey wuxuu yidhi kii u horreeyey wuxuu yidhi tigaadi iyadaa laacda tigaadi iyadaa laacda tigaadi iyadaa laacda kii labaadna wuxuu yidhi bari bari ku dhufo kii saddexaad baa isa soo qaaday oo isna wuxuu yidhi sumal baraar kuma jiro sumal baraar kuma jiro sidaasay saddexdii nin uu mid waliba codkiisii iyo weedhiisii lagu xidhay u dhiibtay bal haddaba yaa kala saari doona qalanjada halkan taagan baa dee kala saaraysa iyadaa u xil saaran oo kala xulanaysa iyadaa kala hufaysa oo kala haadinaysa oo mid qaadanaysa labada kalena tuuraysa talow kuu noqon doonaa allaahu aclam garan mayna kuu noqon doono hase ahaatee inantii saddexda nin waliba waxbuu ku dhawaaqay haddaba ninka ugu horreeyey ee yidhi tigaadi iyadaa laacda muxuu u jeedaa ninka labaad ee yidhi bari bari ku dhufo muxuu u jeedaa ninka saddexaad ee yidhi sumal baraar kuma jirase muxuu u jeedaa nin waliba ujeedduu leeyahay hadalkiisa ujeedduu ku soo koobay nin walba hadalkiisu ujeeddo gaara ayuu daaran yahay bal markaa waxaynu eegaynaa ujeeddada uu nin kastaa leeyahay saddexda ninba waxbuu sheegtay nin qurux buu sheegtay ninna qoodhnimuu sheegtay ninna qaninimuu sheegtay nin qurux buu sheegtayoo nin qurux ayuu sheegtayoo waa ninka yidhi tigaadi iyadaa laacda ninna qoodhnimuu sheegtayoo waa ninka yidhi sumal baraar kuma jiro ninna qaninimuu sheegtayoo waa ninka yidhi bari bari ku dhufo sidaasay saddexda nin waliba uu ujeeddo uga lahaa hadalkiisa ama weedhiisa dabeeta gabadhii maxay samaysay waxay tidhi gabadhii way kala xulatay raggii bay kala huftay way kala haadisay way shaandhaysay gees walba way ka eegtay inantii saddexdii nin ee uu mid quruxda sheegtay midna qoodhnimada sheegtay midna qaninimada sheegtay kii ugu horreeyey ee yidhi tigaadi iyadaa laacda kaasi qurux buu sheegtayoo tigaaddu markay halkaa ka baxdo iyadaa wacwaclayso oo dhalaalkeeda iyo quruxdeeda dee waa laga yaabaa markaa sidaasuu u yidhi isagu tigaadi iyadaa laacda ninkaa tigaaddu wuxuu sheegtay ninkaasi qurux ninka yidhi sumal baraar kuma jiro isna wuxuu sheegtay qoodhnimo oo nin dheer oo laf weyn oo murqo waaweyn oo dhisan ayuu sheegtayoo inuu yacnii nin qoodha yahay oo dhisan oo raganimadiisii buuxdo ayuu ninkaasina sheegtay ninka yidhi bari bari ku dhufo wuxuu sheegtay inuu yahay nin reer qaniya ka dhashay oo badhaadhay oo waxa weeye xoolahoodu ciidda ka badan yihiin oo caanaha la qubo ayuu ninkaasina sheegtay oo marka aan ku guursado waxa weeye barwaaqo iyo badhaadhaad adig iyo ubadkaaguba ku noolaan doontaan buu ninkaasina yidhi saddexdii nin ee mid quruxda sheegtay midna qoodhnimada sheegtay midna qaninimada sheegtay inantii waxay boqortay oy taajkii saartay oo waxa weeye ay xulatay oo ay fikirkeedii isugu geysay ama xulashadeedii ay isugu geysay ninkii yidhi
waxay isugu geysay ninkii yiri ama ninkii sheegtay qaninimada bari ku dhufo ayuunbay qaadatay ninkii labadii kalaba kii quruxda sheegtay iyo kii qoodhnimada sheegtayba waa ay ka tagtay in yaroo kaftana haddaan ku daro sheekadani waxay kuu caddaynaysaa haweenka Soomaaliyeed iyo sida ay maalka u jecel yihiin gabdhaha Soomaaliyeed iyo guunyada xiriirka ka dhaxeeya dumarka Soomaaliyeed sida ay maalka u tixgeliyaan ayay kuu caddaynaysaa sheekadani aad iyo aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulan dambe oo xiiso leh